بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعطي دمانتين ودوا السلامية خير بين دود الجنية دمانتين dadka inta caanusanaysan ilaahay caafiyo baan leenahay inta caafimaadka qabtana ilaahay inama soo gaarsiiyo caafimaadka maanta dunida ka socda waad ogeydino course baa inoo socday course waxaan naga kala dilay xanuunkan dunida baa saameeyey marka waan nigii isla garanay in aan koorsada online ku qaadano markaan casharada annaga inoo harsanaa haddii aan eego curriculumkii markaan saa u dhex galno dhammaan casharada designka majoritygoodii ee coursekan loogu talagalay majoritygiisi waanu qaadanay waxaa inoo harsanaa saan filayo ardayda qaar way qaadatay inta aan qaadanna waan ugu celin doonaa insha allah colorteegi iyo font tape photoshopkana markaan aan kusoo noqdo dhammaan tuulashiisa majority tuulasha inta looga baahnaa in loo isticmaalo designka majority waan baranay ay ka mid yihiin haddaan dib u brief gareyno move toolka cutting toolka iyagana object selection toolka iyo laser toolka dhammaan tuulasha bedelkooda waan baranay brushwork saa loo sameeyo waan baranay waxaa kale aan baranay sidii aan loo sameyn karno invitationada maanta waxaan markaa cashirka maanta aan idiin soo diyaariyey waxaan in aan sameyno waxa loo yaqaano cover book designadii aan soo tuulashii aan soo baranay ayaynu ku base garanayna insha allah cover bookan cover book marka la sameynayo book marku daabacan yahay iyo marka aanu daabacnayn oo ku jiro book spaceka aad bay u kala duwan yihiin different weyn baa ka dhexeeya wada ogtihiin buugga marka la furayo latiniga buugga latiniga ah wuxuu ka furmaa dhinaca bidix buu ka furmaa marka uu work spaceka ku jirana coverka dhinaca uu ka furmaya wuxuu qabanayaa dhinaca midig marka sababtoo ay tahay dee buuggu badanaa ka furka xagga dambe ka imaado wuu laabmaya isku laabmaya facing buu noqonayaa buuggu markuu facing noqonaya dhinaca laga furayo buuggu wuxuu noqon doonaa dhinaca bidix work spaceka ku jirana wuxuu noqonayaa dhinaca midig marka let's do this baan bilaabin haddii alla ka dhigo okay marka si aan u sameyno cover bookga waxaan u baahanaa laba sawirkaas oo koobaad oo ah ka backgroundka isticmaali doono iyo sawir noqonaya daruuraha oo xagga sare ka gelaya first of all intaan wax kala bilaabin waxaan sameynayaa maadaama aan cover book sameeyo waxa ugu horeeya shardigaas in hore dib u sheegay wuxuu noqonayaa sorry okay afka goor cabirkii baan furanaynaa haddii alla ka dhigo marka cabirka buugga booklet markuu samaysmayo cabirkiisa waa la naqaanaa u kala duwan yahay laba nooc buu noqdaa book A5 ah book A4 ah waa buugaagta aan isticmaalo anagu dalka ku isticmaalo markaan eegin dadku waxaa jira buugaag B4 ah waxaa jira buugaag iyagu noqonaya A5 B5 B6 inta way jiraan laakiin anagu buugaagta aan dalkeena ku isticmaalan sida caadada ah waa buugga A5-ka ah iyo buugga A4-ka marka buugga A5-ka ahi oo markuu coverku isku laabmayo wuxuu noqonayaa coverka wuxuu noqonayaa A4 waayo A4 marka la isku laabo waxaan ay facing noqoto wuxuu isbedelayaa A5 sidaa awgeed waxaan ka dhigaynaa cabirka A4 maadaama book A5 sameysanayno let's do this okay marka goorsa cabirkan furtay buuggii ayaan bilaabanaya haddii alla ka dhigo waxa ugu horeeyaan sameynaya waxaa weyn in aan guideline-kii samaysto si aan xuduudaha aan u dhowro aan dee buugga hareeraha aan waxba uga go'in first of all waxaan tegayaa file menuga then waxaan dooranayaa new guide layout waad xasuusataan bal filayaa cashirkii baan ku qaadanay loolan jiray broshurka
marka ugu horeysa maxaa ugu horeysa buug imsu qaybad buu qaybsamaya buug xaguu ka laabmaya one space oo bartamuu ka laabmaya dibna wuxuu qaybsamaya laba sooma marka meesha ay numberka ku qoran tahay waxaad ku qoraysaa laba labada space buugga inta u dhaxayn kartaa waa maxay waxay ku xirantay buugga aad daabacan doonto hadhowto inta uu leegi hadduu buuggu aad u buuran yahay oo qaladiisu buuran tahay spaceska u dhaxaynaya buugga wuxuu noqonayaa mid aad u ballaaran haddii buuggu sida magazine oo kale uu yahay ama buug yarna yahayna spaceka inta u dhaxaynaysaa u yaraanaysa marka waxay ku xiran tahay buugga daabacanaysa hadduu buug farabaday marka 2 centimeter baad ka dhigaysaa hadduu buug yar yahayna waxaad ka dhigaysaa xaggaasaad ka dhigaysaa 1 centimeter maadaama uu buug A5 yahay wuxuu badnaan karaa inuu noqdo 2 centimeter ayaan recommend garanaya okay hareeraha dhinac walba waxaan doonaya inaan 1 centimeter ka soo kaco from the top 1 centimeter baan ka soo kacay from the left 1 centimeter xagga hoosena 1 centimeter right kana 1 centimeter dibna waxaan oranayaa okay then waxa ugu horeeya sameynaya muxuu yahay waa in aan sawirkan ugu talagalay background-kana soo qaataa okay sawirka marka saan u yeelan waan qaadanayaa waxaa la tegayaa meeshaan dooniyey then waxaan sameynayaa sawirka wuu yareynaya okay markaas waxaan ilaalinayaa sawirku image-ka xaggan iga muuqdaa markasta inuu noqdo image qurux badan oo soo jiidasho leh guideline-ka sababta xuduudaha aan u samaystay ayaa waxay tahay in contentiska aan dhex dhigan karayo meesha ee ka muuqan doonaa inaanay dhinacba buugga u dhaafin okay imka anagoo ka faa'iidaysana tooliskii aan baranay laba dhibaato imka haysato labada dhibaato waxay kala yihiin xagga ugu sarreysa smartna surface-ka dhulku ma gaadhsiisna xagga hoosena maad aragtaana dhulku ma gaadhsiisna waxaan doonayaa tasawirku inuu sida imka igu muuqdo inuu u muuqdo marka anagoo ka faa'iidaysana tooliski aan isticmaalnay aan baranay ay ka mid yihiin fittingka iyo heel toolka marka gorta selection toolka intaan tago waxaan calaamadinaya inta aan doonayo inaan wax ku korsado just like this kan right click intaan ku dhufto waxaan oranayaa sawirkan oo calaamadsaday waxaan oranayaa fill markaan idhaahdo waxaan oranaya insha allah okay dee wuxuu generate gareynayaa cirkii buu generate gareynaya wuxuu kana ka generate gareynaya meesha xaggan line-kan hoose ayuu ka generate gareynaya okay waad aragtaa soo generate gareeyey wax buu kaga tegin waxa uu ka tegey sidee baan beenaya just inta xaggan soo calaamadiso waxaad isticmaashaa bash toolka ma xasuutaan bash toolka isaguna healing tool ku tashlay soo yeerjidiisa then dibadda u select garee intii kale haddana dib u generate garee intaa sawirku dhamaystirmo fitting then okay okay deegan haray deegan marka hadda ida waa ayar generate gareysa sida cirku u balaarnaa blue inta blue ga badnaan laakiin imka xagga marka doonayeen aan
aan in ku kororsado dhirtaasi siduu u jeeralad garanaya waa ku adkaanaysaa marka waan ku dhowaanayaa oo aad ilaa gunta ku dhamaystiri maayo intaas halka garanaya in yar kuban ba noqonaysaa waxaan odhanayaa fit fill dina waxaan eegnaa imka balaatan siduu wax u jeeralad garay balaatan aan ka hor doonaynaa okay si waxaan bu jeeralad garayey step by step ku darayaa u badan maayo waxaan odhanayaa fill fiilka waa most powerful tool weyn oo tuulasha aan ugu jecelahay badanaa inaan isticmaalo oo waayo meel de wax ku qornaaya ba intaan ka jaro ayaan odhanaya hareeraha iga jenerate garay dibna sawirkiio aad moodo inaan marka sidiisii hore originalkiisi inaan waxba ka maqnayn ayay awood u leeyihin ku sameeyo okay maxaa inoogu hadhay marka intaa aan dhamaystirno xaggan hoose waayo dhigaga waan dhameynay xaggii sare waan dhameynay okay let's do this xagga markaan eegno soo qabo okay xaggan ugu hoose saa daba timi haddaan eegno imika saa hoosta xagga hoose ka qabo right click then waxaad tiraahdaa fill okay haddaan eegno imika bal xagga hoose siduu ka dhigo marmarka qaar baa jirta dee uu sawirka mess up ka dhigo oo cagaha geela kale inuu soo jeeralad gareeyo balan eegno hadaba maalin horta siduu u fiil gareeyey fiil asligeedu nacmo macnaheedu waxaweyn waa buuxi meelaha bannaan weyn okay adarka xaggan cagtuu soo qaaday then iyada saan u samayn karaa waxaan saanaya saasaan odhanayaa kaan tegayaa aka halkaa bal hadda u fiirso detailska meelaha qaar baa doonaya inaad u fiirsato okay so far so good okay haddaba marka bartaa marayo maxaan samaynayaa magacii magacuun in aad clear u noqdaa sawirka weliba aan waxaan filaya weliba u baahan yahay si uu magacu space u helana weliba hoos loo yardejiyo fiir okay okay Control D intaasaan calaamsanaya dibna intaasaan bedelaya keliya Control D okay haddaba magacii baan qorayaa marka ugu horeysa soo qabo tegastii xaggan qoraal la kaalay waxaad ku qortaa buuggan magacan u bixin kasoo qad hiddan u bixinaa then أنا وديسين فرطة okay marka cover book markaad samaynayso title-ku inuu noqdo horta farti aad muuqan karaysa oo la akhri karaya inaad xasuutaan in kale mooyaane faraha markaan barayay marka titleska iyo waxay ku macaan yihiin bandikuri sans serif waayo iyadoo waa most clear
dadku waxay u baahan yihiin marka buugtay ama arkayaan buug la akhrinayo inuu readable u noqdo understandable inuu noqdo principleska ayay ka mid ahaayeen somaa designkan okay marka maadaama ay saa tahay chooseskaygu wuxuu noqon doonaa inuu noqdo sans serif familiyadii sans serif mid ahaan ka doortay waxaan sameynayaa in aan farta marka hore isku yara dhaweeyo spaceska ay isu jiriyaan soo xaggana ka yaranaya okay that's enough yar weynaysidna kalarkan waxaan doortay in contrastkiisu socon muuqdo ima black waxaan sii jeclaysanay inaan ka dhigo yellow anoo backgroundkana uga dhigaya drop shadow f حقن فيكس تكتب drop shadow استعمال boom الصبحي فرأض قرحبان اوكي سايز كان يرانيا شادو سايز كيسا يرانيا سبيسيس كيو جيرينا ويردو كينيا كونها انا ونير ساريا كان وحو مامولا ان كونها او سارو هارك ان كونها او سارو كان وحو مامولا هذا هاركو انو فيدينكيس انو ير وين كلا كان انتو فرتو ير دمع لايكانيسون كان دمعدو اد بول منو هاسن كدغنا سبيسيس كان كلي أنا يريرن opacity ga yimi hadda opacity gana yaryara okay ten okay doonaysa farta ma marayaan waxaan ilaalinayaa fartu inay u dhaxayso xariiqada guideline kan xaga iga soo waran inay center kaga dhacdo okay then subtitle kii baa yimi subtitle ku muxuu noqon karaa kasoo waxaan bixinayaa buugga asal raaca Soomaalida waqooyi galbeed okay dibna fartoon subtitle ku sugan yiraahdaa xagga uu kan bold ka ahaana uu kan noqdaa regular markaas waxaan soo jeedinayaa title markuu noqdo bold inuu noqdo subtitle ku sugan regular waa markaan ka hadlayo font style-ka marketing midabkana waxaan ka dhigayaa dark okay furtan xaggii marka hore iskaga dhaweyd title-ka kan iskugu dhaweyn maayo waxaan ka dhigayaa default 0 waan ka dhigayaa size-kana yar yar كنت كويس هذا اوكي برتام كم مريض أرتان بتبدأ الدايوان هلا لكن قروحك للناس وصل من دقيقة مكوى حاجة سرنا بوغا
size kan weynaysiinaya I think inaanu select gareysnayn okay select gareysin fartana ka wada dhig inuu noqdo the capital ama waxa kan yahay buuggaas sax okay hoos yar dhig xaga soo gaarsii hada isku day spaceskiisina inaad yar kala dalkiso okay xagan uga hooseeya waxaan ku dari karaa in aan u sameeyo border qoraalkan hoose hada suuq subxaanayo borderka just click kalarka ka soo qaado black badhe dadna qoraalkan sare ka sare si shape-ka black baan ka dhigay maadaama uu shape-ku black yahay maxaa waajib xeerku noo sheegayay in uu text ka sareeyo inuu noqdo white wax opposite ku ah soft okay let's waxaad moodaa white in yar ag leeyahay so waxaan u bedelayaa yellow xagga farta aan ka dhigay iyadana black oppositekiisa black okay waan siinaya egg shadow kana waxaan sameynayaa kan ayaan waxaan uga soo drop shadowgiisa ayaan uga soo koobi garanaya waxaan oranayaa copy layer style then shape inta dul tago ayaan waxaan oranayaa pass layer style dib uga soo dar okay then so far so good shape-kaas waxaan doonayaa in xaggiisa dambe afarta kone uu noqdo rounded mid kala laabmo so properties markaas kusoo shape-ka doorato properties baa kusoo baxay properties-ka xagga maaragtay qoto 120 waxaan ku eegayaa just rounded buu noqday saartan laakiin make sure in ay saaran tahay calaamadda yare linkiga way haddaan saarin afarta kone markaan wada laabiyo kone quru ka laabaya xaggana كاريرادو شوف سيدا هيا اوكي then اوكي ده دي سو نقطة حتى با بوغو سيدو مور تريسون نقو حد مدى ان كنت تسكى حاجة يلا انو هوس كسو غلاي شيء كتير واحد سمان سوانا وصل لك غلاي صار دمانتود aad marqna altada haya aad mar isku ururisid koonad ka soo wato okay then okay
I think markaan soo eegay drop shadowgaasi aad buu fara badan yahay waan ka delete garan kartaa waxaad mudanaysaa isku dirtay just fatana just make it black or bluish kaasana and kan dambana the same clear kalgiisana santaa kaa ka qaado pointigana opposite design-ku markuu kuma soo wada dhacayo mar waxbaa kula qurux badnaanaya marka ha ka baqin inaad bedesho design-ka hore aad design garaysay inaad wax ka bedesho ilaa aad hesho kalarkii ku canaa ama fontikii ku canaa ama ku habboonaa okay okay markaan istekisiiyey wuxuu isku I hope imka sida ku qurux badan welier okay farta waana ku dhaweysaa surface-ka then just go there zero okay adiga markaad farta mariyo inuu soo far soo gudbaan marayno then waxaan sameynayaa client ama buga sameeyey aan sawirkiisa meelahaas kala dhigaya waxaa i baas galaysana inaad garanaysa kalamane stylekii igu jiray meesha weli waan isticmaalaya okay xagan waxaan ku qoranayaa make it capital then okay samee $2020 okay then board ka tahay markaa iska taqaad kartaa maaha board caadiya mar walbo dhaha then labada inta isku select garayso drop shadow view isticmaal oh my god drop shadow was too much way ku yaranaya halkaa
okay labadan kala copy gareey copy style tana ku pass gareeyaan past okay so far so good bartaan markaan maraya waxaan doonayaa si more based u noqdo shadow waan soo sameynaya xagga arkaa shape baan sameynayaa anoo marka ka faa'iidaysanaya waxa aan u naqaano clip masking okay clip masking muxuu sameynaya xagga hoose ayuu ka midoobiyey dark baan ka dhigaya markaa opacity-gana waan yareynaya okay markaan marayno waxaa yaadhay oo textkii boodiga xagga dambe sayriga size-ka copy and paste copy and paste farta waxaad ka dhigta far yar oo dhuuban eryar baa u soo qaado fartuunan markaa aanay ka badan 12 markay ugu badanta 12 aad bay badanta baan u aqaana 12 ba ka dhig fartuunka hadaan ba ka dhigayaa paragraph ka dooro justification-ka so good so far definition-ka okay just okay gana hadaba background-ka foto ma kala muuqdaan base ay kala muuqdaan xaggan waxaa igu soo jiray shadow masking bay igu jiray xaggaas sare maaha maskinkaasaan doonaya inaan aad yar muujiyo waxaan isticmaalnaa burushkii loo yaqaanay burushkaas maartaan ayaan saa taabanay maxaa uu sameeyey markaa kalarkii aad igalaba ayuu soo celiyey soo maa waa faa'iidada uu leeyahay maskinku okay burushkii soo qaado aad too far yahay opacity-gan iska yaranaysaa soo cesho iska danta weelishtiisa ay saan u muuqan meesha iska soo geliyaan hada kale okay I think this is final result-igi maaha laakiin waxaan jeclahay cashirka inuu barta inagu ekaado
waayo waa deg yahay bartasan si aan ugu sii wadno cashirka soo socda